Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtaygu qaaliga waa idin salaamay dhammaan adduunka dacalada meel kasta aad ka joogtiin caafimaad igu waara maasha allah maanta waxaa ila wadaagayaa waa hilib ari qaabka loo foorneynayo insha allah mar labaad laba mar hore ayaan usoo geliyay haddana waa markii saddexaad insha allah idinkaga faa'iideynayo asxaabay soo dhawaadaya leeyahay nala daawada muuqaalkan qaabka u sameynayo iyo waxyaabaha aan ka sameyn doona insha allah soo dhawaadaya leeyahay daawasho wacan halkan waxaa igu jiro waa hilibkan ayaan soo karinayaa waxa aan ku daray waa basal iyo waxyaabihii carfiska iyo waxaan kaloo ku daray waa malti hilibku way carfisaan Soomahan iyo waxyaabahaas chickenkaas waa lagu darsadaa waxaan kaloo oo ku daray waa kabsar caleen aan soo jarjaray waan soo dhaqay kabsar caleenta caraf ayay noo siinaysaa iyada inaba caadi maahan pressure cooker-kan ayaan ku karineynaa maanta hilibka waxaa laga rabaa inuu soft noqdo si fiican u karo intuu hilibku noo sii karayo waxaan sii habeysanaynaa waxyaabihii aan hilibka dusha ka marin lahayn oo horeen halkan waxaa noogu diyaarsan waa 2 xabo yaanyo kabsar caleen toon 4 xabo raqay maasha allah waxyaabihii dhan ayaa halkan kusoo shubay mashiinta kadib waan shiidayaa insha allah basbaas uu noogu jiraa maasha allah waan shiidaynaa intaan halkan waxaa igu diyaarsan hilibkii aan soo kariyay oo joodin sidoo u qeecayo maasha allah si soft ah hilibka inaba caadi ma ahan aad ayuu u jilcay haddana waxaan dusha uga shubayaa waxyaabihii aan soo shiiday qudradii ayaan dusha uga shubay si uu dhadhan noogu yeesho maasha allah tabaarakallah soo shiiday qudradii markaan soo shiiday waxaan ku daray waxyaabihii carfiska iyo cusbo si hilibka dhadhan u yeesho si fiican ayaan isku dhexgaleynaa insha allah isla socod wanaagsan halkan waxaa igu diyaarsan qudradii aan ku habeyn lahaa hilibka waa 2 xabo zucchini baradho 3 xabo oo waaweyn kaarot 2 xabo barbarooni 3 nooc malti iyo soya sauce ayaan korka uga daray kadib waxaan dusha ka saaray waa hilibkii aan soo kariyay aan soo mariyay waxyaabihii carfiska maasha allah haddana korka ayaan uga shubay waxyaabo qaybtii kaleeto oo ka hartay ayaan dusha uga shubay hadda ovenkii waa ii diyaarsan yahay wuxuu ii geysan yahay 180 kor iyo hoos insha allah waxaan ku kofar gareynayaa aluminium ayaan dusha ka saarayaa kadib ovenka ayaan gelinayaa insha allah hal saac kadib insha allah waan ka soo saari doonaa haddii Allah raxmaanka yiraahdo hilibka ileen hore oo soo karina Soomahan qudradan waxaan la kula huurineynaa maasha allah hilibkeena sidatan ayuu ku soo baxay oo horeen waxaan ku habeenayaa waa saxankii oo joodin si u kala dhacdhacayo qof ay ka qayn xataa waa cuni karaa Soomahan qaybta hilibka aad ayaan inkaga soo dhisay waa markii saddexaad aan soo geliyo codsi xagga asxaabta iga yimaaday maasha allah hadda waxyaabihii kale ayaan idin soo gelinayaa kan waxyaabahan hadda hilibka qaabka loo foorneynayo waa ka faa'iideysteen I hope waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysteen maasha allah saxankeena sidan ayaan kusoo habeeyay bariiska kamaan soo duubin video bariiska channelka hore ugu jira maasha allah
2 saxan ayaan kusoo kala habeynay ujeedin, qaybna saxan kale ayaan kusoo habeynay hilibka, qaybtan kaleetana bariiskan iyo hilibka ayaan isku soo habeeyay. Masha Allah asxaabay, ka faa'iideysta insha Allah. Bariiska channelka ku jira dib ayaad ka eegi kartaa. Dhowr mar ayaan soo geliyay masha Allah. Waxaan filayaa inaad ka faa'iideysteen qaabka martida loogu habeeyo hilibka ama loogu forneeyo. Masha Allah, sidan ayaa inkaga dabageeyay waa idinka soo dhisay Soomaa asxaabay. Sida inkaga soo dhisay ayaan rabaa anigana iga soo dhistiin qaybta like-ta iyo share-ta insha Allah iyo comment qurux badan ana isoo qortiin haddii Allah Raxmaanka yiraahdo. Asxaabta nagu soo biiri doontana mar wali waxaan leeyahay soo dhawaada. Please subscribe samee. Gambaleelka furo si aad uga mid noqotid daawadaha ugu horeeya ee daawado muuqaal waliba aan soo geliyo insha Allah. Waa inoo kulanti dambe iyo video dambe insha Allah idin soo gelin doono mid kasii qurux badan haddii Allah Raxmaanka yiraahdo. Waxaan idinkaga tagay salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mac salaama.